sida adinka warka u sugaysiin oo warjeceshiin aniga bani la warjeclahay waa faantay soo mahan horta dadka fiidiyoogii hore tala socdeen waa sheekadan ay u socotaa waa la baaray anugtii waxa la baaray beebiga DNA-giisa la baaray waxa la ogaaday anugaasi inuu adeerka dhalay okay DNA-ga adeerka ayaa iska leh oo asaa dhalay laakiin dad badan waxay isweydiinayaan Soomaalidu waa faniye anug sidee anuga naas ku siinaysaa naasam u soo baxeen see anug ku nuujinaysaa soo maadaama ay 12 jir tahay sidoo aqligaadu keenay anug 12 jir inay wax nuujinayso even haday naas leedahay anuga cala tool waa laga qaaday gabadha dawladda waxay siisay family ay siisay anugtina ayadana waxa la geeyay meel therapy la geeyay oo waa la daaweynayaa yani xaalad sahlan ma ahan waa dareemi kartaa qofka markuu dhalo qofka weyn ka ahba xaalad adag galay fama baalo anug 12 jir ah xaalad yar ma ahan so baaritaan fara badan la sameeyay koodii horeeto gynecologist waxay dhahday it's possible yani anug 8 jir uur way la kartaa laakiin su'aash waxay ka taagan tahay anugta siday sheegtay wareysigeeda waxay dhahday waxaan isticmaalay fasax la'aanta alaabta yani isbeermaha adeerkayga so waxay dhahday dhakhtarada gynecologist la wareystay waxay dhahday isbeermaha wuxuu banaanka ku noolaan karaa yani banaanka meel korka bani aadamka aan ahayn banaankiisa wuxuu ku noolaan karaa saacad yar oo kooban halka jirka bani aadamkana uu maalmo gudihiisa uu ku noolaan karo so haday dhacdo anugta siday sheegaysa ay tahay oo ay anugtaani fasax la'aanteeda alaabtaas isticmaashay وين السدس يعني سدس سحلة واب الصح وايب عنو أورك أديرك إسكله وفسح لأنت أديرك أي عنو جالسين أي أورك كويه لتي أديرك دم بمالهنا على هاي وفسح يون قنايا تنكله تنا الشيء كذا دولة ده ويساء في جريساء وصابته أهمل الربو وح إنفورميشن عنو كاسي كسبسن إن لا شيء ولا فمي كده انتبه لما نبو حلقة وده جاي برايفت وعنو تمشي كسو جدو يعدة أي تهاي أديرك ماشي كسو جدو عدة ويا هاي قاب كي تهاي انتبه لما شيء أنا كهن مقالة أي دقين هنا ومقالة سيجن لدهاي أو شرملك كتالة انت كلاته wax kaleeto oo la sheegay ma jirto magaalada Anvald Shaftiga oo status Anvald Shaftiga la dhaho wuxuu dhahay barnaamijkaasi waxa laga dhigayaa wixii intaan ka dambeeyo wax oo la soo faafinay ma jirto intaasana website dhamaantooda lagu soo qoray saw adinka maxay isleediin anugta siday sheegaysa ma sax kula ah oo ah fasax la'aanta adeelkeeda inay alaabtaasi isticmaashay uur ku yeelatay mise waxa isleediin anugta barnaamijkaasi waa laga dhaadhiciyay aniga ka xabiib ahaan ra'yigayga ilama ahan anugta wanjira inay ku dhacayso inay alaabtaasi fasax la'aan intay qaadatay isticmaalayso ama information intaas la eg ba ay taqaano sababtoo ilmaha markay 7 years yani galaaska 7 lixaad meelaha sagaan ayaa waxa la baraa bani aadamka sida uu abuurmo isbeermaha eggs waxa soo dhan markaas la baraa sidee marka anugta wanjira informationka intaas la eg ay ku heshay yaa sabaray hadayba ay tahay sax laakiin aniga ilama ahan totally waxay ila tahay anugtaasi ina xadgudub loo geystay ay uurku ku yeelatay laakiin familkeeda iyo barnaamij ay soo deganay tahay adeerka iyo hooyadaba intaba lagu ilaalinayo adinkina ra'yigiina say idin la tahay insha Allah waxa rajaynayaa ina ra'yigiina quruxda badan aan akhriyo wixii ka soo baxan waan soo sheegay in kasto barnaamijkan hadeer oo laga dhigay secret wixii soo bixi doona laakiin Allahu a'lam salaam